Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaha meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtiin waan idin salaamay. Bacda salaan waxaan ka hadli doonaa oo inoo socday mowduuc hore oo ahaa hooyada markay uurka leedahay qeybtiisii koowaad iyo qeybtiisii labaad. Hadda waxaan ka hadli doonaa qeybtii saddexaad insha Allah. Qeybtii hore waxaan kaga soo hadalnay labadii qeybood laga bilaabo maalintii hooyada noqoto positive ilaa iyo bishii lixaad. Hadda waxaan ka hadlaynaa bishii lixaad ilaa sagaalaad hooyada cuntooyinka u baahan tahay waxaa ka mid ah inay qaadato all proteins-ka sida waxaa ka mid ah maadaama cunugii uu koraayo waxay qaadanaysaa sida digirta, sidoo kale waxay qaadanaysaa malaaygi iyo waxay qaadanaysaa chickentii wixii protein ah dhan way qaadanaysaa. Waxay ka helaysaa cunugii iyo jirkeedaba inuu energy helo, cunugina uu ku koro oo cunugii uu koro maadaama koritaanka xiligiisii ay tahay bisha 8aad iyo bisha 7aad dhamaadkeeda laga bilaabo ilaa bisha 8aad sagaalaad bilowgeeda intaas buu cunugu koraa. Waxay qaadan kartaa afakaandhadii, ukuntii, waxay kaloo qaadan kartaa malaaygi, waxay qaadan kartaa nootka ama looska wax loo yaqaano, waxaasoo dhan cheese-ka waxay ka saacidaan cunuga inuu soo kobco uu soo koro hooyadiina ay hesho energy xiligii bushcraft ama riixista cunuga markii la gaaro jirkeeda wuxuu ahaanayaa mid oo xoogan. Waxay kaloo u baahan tahay oo ugu muhiimsan oo hooyada inay markasta cunto ay u baahan tahay timirta. Waxay ka helaysaa sidoo kale iyadana iron inay kor u badato oo dhiigeedii uu u saacido haddii hooyada iska dhiigeedu uu yaraa awalba. Waxay kaloo ka saacidaysaa in oo cunugii ama uterine-kii uu usoo galo si soft ah hadhow cunugii uu kusoo gudbo kale way ka saacidaysaa. Timirta inay badsato hooyada way u fiican tahay. Sidoo kale waxay ka helaysaa vitamin D. Waxay kaloo u baahan tahay fruits oo kala duwan ayuu nooc fruit waa inay cuntaa. Vitamin D ka helay, vitamin A, vitamin C waxaasoo dhan karootado kale inay cunto kale qaraha liin ayuu nooc oo liin ah vitamin C yaa laga helaa. Broccoli-ga kale qudaarta waxay kaloo cuni kartaa sabuulka, waxay kaloo cuni kartaa grapes-ka ama waxa waaye canabki waxay heli karto cananaaska, cambaha ayu fruit way cuni kartaa. Wixii cagaaran inay cunto waayo hooyada uurka leh waxay ka saacidayaan sidoo kale iyadana xagga oo fiber-ka way ka saacidayaan calooshina u socodsiinayaan. Sidoo kale waxay ka helaysaa fiber fiican iyo waxay ka heli doontaa calcium qaarkood sida broccoli-ga kale calcium baa laga helaa asagana. Ukuntana waa u muhiim borotiinka ay ka mid tahay. Sidoo kale hooyada inay biyo badan ay cabto waaye maadaama oo xiligaasi ay tahay xiliga cunuga uu koraayo ay ku jirto jirkeeda waa inay biyo badan ay helaan oo biyo badan ay cabto. Sidoo kale hooyada waxa waaye inay iyadana waxa laga rabaa inay sameyso everyday planning oo u go'an maanta waxay cuntay inay biri hadan ay ka yara bedelato oo wixii dhan ayagoo ay yihiin carbohydrate, protein iyo waxaas ayagoo ah hadan inay cuntada isku balance gareyso si oo waxyaabo badan oo nafaqooyin ah kala duwan jirkeeda u soo galaan. Kadib hooyada waxay xiligaas markii la gaaro waxay la kulantaa qaarkood hooyooyinka waxay helaan dhabar xanuunkaasna waxa waaye waxa oo zaaid u daran haduusan ahayn waa iska caadi maadaama oo culeyska cunuga xiligaas uu bilowday ilaa ay hooyada ka dhasho. Waxay kaloo aragtaa hurdadii hooyada ka wareerto. Hurdo wareerkana sidoo kale waxay keenaa culeyskii badnaa calooshii zaaid u buuxsameyso cunugii wadnaha u soo dhawaanay. Dad qaarkood waxay arkaan xitaa wadna garaac. Waxaasoo dhan waa iska caadi. Waa waxyaabo xilli uurka dhacaan waxyaabihii zaaid u daran oo abnormality-ga insha Allah mar kale aan ka hadli doonaa. Sidoo kale hooyada waxay u baahan tahay xiligaas inay socoto socod yar ay sameyso exercise ah iyadoo oo xiligaasna u baahan in la garab istaago ama ha noqdo xaajigeeda ama ha noqdo familkeeda qofka xiligaas u dhow oo ag istaagi kara inuu garab istaago oo la siiyo niyada loo dhiso. Hooyadii waxa waaye markay soo dhawaato xogo waxay yara dareemaysaa waa qof bini aadan ah qof waliba cabsi uu dareemaya laakiin in la dejiyo reassurance wax kasta loo sameeyo oo la garab taagnaado oo niyada loo dhiso oo cunuga cusub waa soo dhaweynayna la dhaho oo la yacni laga dhigo cunug la daahsanayo kale qofka wuxuu dareemaa markaas fiicnaan badan iyo waxyaabo badan ka dagaa culeys ah. Waxay kaloo hooyada u baahan tahay in isbitaalkeedii ay ku xiranaato maadaama uu waqtiga uu soo dhawaado.
xiligaas markii la gaaro 3 bilood dambe waa muhiim in isbitaalka si joogto bishiiba hal mar bish ugu dambeysa oo 9aad markaa gaartid waxa u baahan tahay inaad tagtid every week inay tagto waa isbuuc kasto oo balan ay dhakhtarka la sameysato cunuga la fiiriyo wadna garaaciisa iyo waxa la fiirinaya habka uu jiifo cunuga uterine-ka milma galeenka ugu jiro sidoo kale hooyada waxay u baahan tahay pressurekeeda waxeedo dhan in la ogaado waa muhiim xarun caafimaad inay ku xirnaato ama dhakhtar qaaskeeda ay la xiriirto hadii ay jiraan horey hooyada inay ugu soo dhashay operation iyo wax la mid ah dhakhtarka ka caawin doono ilaa ba awood iskale xalaas waxa kaga baxeena qaybtii 3aad qaybta xigta waxaan kaga hadli doonaa hooyada markay foolanayso iyo marxaladihii ay mareysay iyo ha noqoto hooyo caadi u dhashay iyo hooyo operation u dhashay insha Allah aan ka hadli doonaa si aad ula socotaan fiidiyowada qaybahooda xiriirtada ah kambaleelka furta subscribe saara insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.